halkani waa cisbitaalka magaalada Berbera. xaaladda cisbitaalka guud ee magaalada Berbera ee gobolka Saaxil ayaa laga dayrinayaa kadib markii adeegii cisbitaalkaasi oo maalinta ka sii dambaysa uu hoos u sii dhacayo. waxa gabi ahaanba meesha ka baxday gacan ku hayntii cisbitaalkaasi oo u adeega gobolka Saaxil iyo deegaanada ku dhow. waxa sii baqtiyay shaybaadhadii cisbitaalkaasi oo ah kuwa duug ah isla markaasna aan si fiican xilligani u shaqaynin. cisbitaalkaasi oo xilligan aan lahayn khashaafadaha lagu sawiro lafaha ama lagu eego lafaha qofka jaban ama cadgo'a. sidoo kale waxa gabi ahaanba meesha aan oolin dawooyinka muhiimka ah ee aasaasiga ah ee cisbitaalada magaalooyinka kala yaala. sidoo kale waxa cisbitaalka oo oksijiinada lagu xidho qofka naqasku qabto. cisbitaalka ayaa lagu soo xoomaa sanadkii mar ama labadii sanadoodba mar, xilligaas oo ay dhakhtarka yimaadaan dhakhaatiir dadka indhaha u jeexda oo si bilaash ah dadka ugu daweeya. xilliyada qaarkoodna laga qaado xoogaa gunno ah. adeegaasi mooyaane ma jiro wax caafimaad ah oo ka socda cisbitaalka guud ee magaalada Berbera. gabi ahaanba waxaan jirin dhakhaatiir joogta ah oo cisbitaalkaasi ka howlgasha, taas oo ay ugu wacan tahay xukuumadda Muuse Biixi oo aan xoogga saarin adeega bulshada gaar ahaan caafimaadka siiba magaalada Berbera. waxaa gobolka hantidiisa leeyahay waxa sabab qabtay wax cisbitaalka ka soo gaaray ma jiraan. ninku isaga marka sariirtaas ma la jiifa qof jiifa leerkaas ma ka baxay laakiin se wax dawo oo dhex yaala ma jiraan. gobolka marka hoos u eegta la yiraahdo cisbitaal baa wax laga qabtay, barashada wax laga qabtay, laakiin si caafimaad wax laga qabtay noloshii dhabtahay ma jirto. ilmaha yadaana dawada u soo qaata sariir ana ka ilaashada wax alla wax soo dul istaagan neefka waa soo kaxeeya kaloo dawooyin igmud baan dhada soo qaata dawadii wax dhakhaatiir oo kormeer ku sameeyay dhakhaatiir mid ayada arkaysa laba aan dhamayn tar important oo waaweyn dhakhaatiir waaweyn oo jooga oo meeshii ilmaha ku qabo oo eegi kara. dhakhaatiirta ka howlgasha cisbitaalkaasi ayaa ka yimaada magaalada Hargeysa iyo mararka qaarkood laga keeno magaalada Burco si ay halkaas uga howlgalaan. mana jiraan xilliyada habeenkii ah haddii wax dhib ah ay magaalada ka dhacdo dhakhtar joogto ah oo loogu iman karo cisbitaalka, iyadoo oo dhakhaatiirta maalintii ka howlgala ay u carraabaan dhanka magaalada Hargeysa. marka laga reebo dhakhaatiirta gaarka ah ee iyagu fadhiista meelaha gaarka loo leeyahay sida farmasiyada. isku soo wada duuba haddii cisbitaalka magaalada Berbera oo sii baqtiyaya aan loo waxaa si dhaqso loo arki doonaa cisbitaalkaasi oo gabi ahaanba meesha ka baxa. magaalada Berbera ayaa dhaqaalaha dalka ka soo gala uu badidu ka yimaada dekada magaaladaasi oo camiran, isla markaasna maalin walba ay soo galaan maraakiib iyo doonyo sida badeecooyinka kala gedisan. dhanka kale wararka haddana soo gaaraya khubarada duulimaadyada ayaa hadal haya duulimaadkii British Airways oo ahaa safarkii hawada ee ugu dhaqsaha badnaa ee loogu tago New York laguna wajahan yahay London, iyadoo la eegayo xawaaraha ay diyaaraddu jarayso. diyaaradda Boeing ee nooceedu yahay 747-436 ayaa ku gaaray xawaare 825 mayl maadaama ay ka qayb ahayd riixidda duufaanada Ziyaara. 4 saacadood iyo 56 daqiiqadood ayay ku gaadhay garoonka Heathrow Airport, taasoo 800 oo daqiiqadood ka soo hormartay xilligii la filayay oo ahay subaxnimadii Axadda. sida laga soo xigtay Flight Radar 24 oo ah qalab online ah oo ka hadla safarada duulimaadka ayaa sheegay inay garaacday rikoorkii hore oo ahaa 5 saacadood iyo 13 daqiiqadood oo ay dhigtay diyaaradii Norwegian ahi.